waxa uu ahaa fanaanka ciyaalka xaafadda sida isaguba hore uu sheegay. anigu luuqadda waxaan ku heestaa caruurta luuqad gooni ay leeyihiin caday boono caanaha labeentooda dukaankaas ay gashaa caleenta shaahi soo qabataa waxyaabo badan waxaa jira oo caruurta leh loogu talagalay dadku waaweyn haba dhahan muxuu ku heesayaa. muddo 3 sano dheeraad ah ayuu fanka ku jiray, wuxuu saameyn weyn ku yeeshay qalbiyadooda iyo maskaxdoodaba. dhalinyarada iyo weliba dadka waaweyn ku jaasi jiray heesihiisa. wuxuu gaadhay heerka ugu sareysa fanka laga gaadho, kaasoo ah inuu yahay fanaanka keliya ee ku haysta luuqadda afka Soomaaliga. bartiisa YouTube-na ku xidhan yihiin in ka badan 1 milyan oo qof oo dhegta u raaricin jiray heesaha uu soo dhigo bartiisaas. halgan, dadaal dheer iyo dhafar fara badan oo uu ku jiray, maanta ayuu soo afmeeray waayihiisii fanka. sababta uu uga baxay muu sheegin Sharma Boy, laakiinse walaalkii oo aan la xidhiidha ayaa ii sheegay inuu muddo uu ku hamiyay inuu fanka iskaga fadhiisto. fanaan Sharma Boy ayaa hadda ku sugan cariga dalka Mareykanka. haddaba maxaad ku xasuusan doontaa fanaan Sharma Boy oo maanta soo gabagabeeyay waayihiisii fanka? anigu waxaan ku xasuusan doonaa inuu ahaa haliyey iska soo qaaday zero isgaarsiina to hero.